रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। نبي محمد وحلي عليه الصلاة والسلام حديث كترمذي ورينا يا شيخ الألباني صحيح قلت المامية من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن. نبي وحلي عليه الصلاة والسلام ننكر ريرميغا النقضة وعضت كاضة وهالنولال هذا ذاك نولش باديو وقعد صتادنا غفلة كنا عذاب نبقول وقعد صتادو دمشق ضدك وهو كتجا إلا وانه وقعد رادين إيه يسقو مركزه وقعد راد عدد وجرو جمعية جماعة يملقوا عبادة سنة يبغوا كنا رادا أخيرا وحكونا عيسى محي غفل أبو نبي وقلت المامية موجني ده أمر هردي بكونا عيا ده وقعد يبرجه ريرمي جابه هالكلا طبق لها هاي وقعد يمكوا $1 كان يوحكن تقصي لعبوا رادين يبيله بيلهبان لعلي هالك يكشفوا ولا طبق دي talyaaniga lagu sheegay dii maraykan lagu sheegay dunida dabadeeda hadii lagu sheego lacag waa saankeed waa sayd cusub waa ugaarsiga casriga ee waqtiga kan jooga ninka uu boqorka iyo agagaarkiisa ka fogaan waayana waa imtixaan maabuu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam sultaanka iyo madaxda iyo inta uu ninka isku narnaba inta badan iftatan buu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam waa imtixaan ma waxaynu u baahanay marka si aad ghaflada uga baxdo muqaatacatu rufaqaa suu dad xunka iskaga tag dadka fiican ku dhadhawow si aad ghaflada uga baxdo ilaahi ذكريسا بدي حسك الله سبحانه وتعالى iyo bariyadiisa badi dadku waxaad moodaa bariyadu inay iska gabayartay bariyada ilaahay badiya subhanahu wa ta'ala quraan akhri cibaadayso wardi dhikri ayad akhri nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu inoogu sheegayaa ilaahay dhikrigiisa iyo xuskiisa wax aad u fadli badan oo tira badan waxaynu u baahanay inaynu badino sadaradeed baa ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa duna al-jahri min al-qawli bil-ghuduwi wal-asal ولا تكن من الغافلين بإلهي ورإلهي حسكي سبادية نفط هذا كحس الله سبحانه وتعالى قال هريا قال النبي وقت والبا الله حس ولا تكن من الغافلين بإلهي كو دوهنا من موجنا مهل مانسن أكم الدغني نبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام الترمذي ورينا يا شيخ الألباني حسن كنت المامي وحوصا مري هوانا وحقيري عليكن بالتسبيح هوانا لازمة تصبيح له هي التهليش هي التغذية وردق اللازمة وفرها كتر صدى فإنهن مستنطقات آخرة مرخاتا لقلين ياي ولا تغفلن بنبقوني ورهي دمر وغافل هالنقننا هاي إلا بنا إلهي وردقيس إن الله حسطان هاي إلا بنا وهذا الله إلا ودان نحرستا إلا ودوية وحاو نبقون عليه الصلاة والسلام من قرأ 10 آيات في الليلة لم يكتب من الغافلين هبين كينك طبعا آيادات أخرية لغو قرأ كوا غافلين تاه بغل آيادات نك أخريانا قانتين تالغو ضرابو نبقون كوا خشوع سن وهي صحابة دي نبقو عليه الصلاة والسلام وردقودا iyo dhikrigooda iyo salaadooda iyo quraanka marar badan isku mid quraabay ahaayeen inagu xogaa baynu quraan intaanu yara akhriis kaga tagnaa ama yar baynu gacmaha ka wardina iska tagnaa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam salaad sunnah intuu kaco ayuu quraaba 5-6 ajzaa wax ku dhow ragcad ku akhrinay hal ragco uu taagay ayuu wuxuu akhrinayaa maxay 5 jis 6 jis inagana taraawiixda oo dhan jiska lagu akhriyo maxay naga culays badan isna waa ragca waahida ayuu inta ku akhrinay markaasuu saxaabiga xadiidka warinaya leeyahay intii uu taagnaa in la rukuucsana oo muxuu akhrinay subhana rabbiyal azim taayno noqon waa wardinay isagoo iska rukuucsan ayuu wardinay intii la sujuudsana muxuu akhrinay subhana rabbiyal a'la da soo akhrinay waa wardinay salaadiisi wardigiisi xisbigiisi quraanka wixii ba meel bisugu geey waxaynu u baahanay inaynu ilaahay subhanahu wa ta'ala xuskiisa badino oo dhikriga iyo ducada siiba waqtul ghafla